بسم الله ولا لا بدن با waxay weydiiyaan sokor baan ka cabanayna macaan baan leeyahay intana clipka u gudbin clipka horta dhageyso انت الحين كم شهر ياخذ زيت زيتون؟ 6 شهر. كيف ياخذ استعمال؟ قبل نوم 2 ملعقه شاي اكل. ايوه. بعد نوم افطار 2 بعد صلاة فجر 2 ملعقة. نعم قبل فطور. قبل الفطور. قبل الفطور قبل اشرب مويه اي شيء. طيب اول انت ياخذ انسولين كم سكر معك؟ اول انسولين ايوه 6 شهر. بعدين انا اسمه واحد حكيم باكستاني معروف اي نفر اشرب هذا الزيتون ان شاء الله سكر روح. سكر لا سكر فيه لكن انسولين ما في تابلت ما في يعني لا ما في لا حبوب ولا انسولين ما ياخذ. ايوه صح. لك كم شهر 6 شهر ياخذ؟ دائما. طيب الحين انت قوم من النوم. نعم. كم يكون سكر معك؟ 100 110 110 120 كذا. بعد فطور ساعتين كم يكون؟ بعد فطور 170 80 عادي كويس. طيب بالليل كم انت يجي نوم؟ كم سكر عندك؟ نفس 150 60 تقريبا. اول كم؟ اول فوق من 200 140 130 200. نعم. اول قبل. واذا ما اخذت انسولين اول كم يطلع؟ 400 300 600 اول. اوه. بعدين مستشفى الماني طوارئ ادخل بعدين 6 ساعات عمليات بعدين مشاكل كثير. يا اخواني هذا شغال في مستشفى الالماني السعودي في المدينه. مدينه منوره. وهذا عندي ان شاء الله صادق وياخذ زيت زيتون من عندي او من عند غيري، لكن هو زبون عندي ياخذ زيت زيتون الجوف من مطاحن ومحامص ام القرى بالمدينه، والزيت زيتون متوفر بكل بقاله، وهذا شهاده لله ليس للدعايه، والله اعلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. waad dhammaysatay inta carabiga fahansan maxaa kaaga baxay daawadeedu waa tan zayd zaytun jawf saliidaas waa saliid mucjizo ah walaalaha aysan aqoonin muhiimadu ma aha inaan aniga gadayo ama aniga aan saliid aan leeyahay aan idiin soo bandhigayo waa talo aan u jeedinayo qof walba oo sankor qaba qof walba oo sankor ay ku dhacday qof walba oo sankor ka cabanaya saliidan sida hadda wadaadkaas uu idiin sharaxayo ama uu u wareysanayo walaalka kale ee ajaanibka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku caafiyay isagoo intaasoo maaragtay daawo qaadanayay maantana uusan daawooyinkii qaadanaynin sababtu waxay tahay waa saliidan horta marka koobaad waxaa laga helaa dalka sacuudiga kaliya inta aan ogahay qaybteeda originalka waxaa laga helaa sacuudiga waxaa la yiraahdaa zayd zaytun jawf waxay u fiican tahay waa saliidaha zaytun waad ogtihiin oo allah awood leh khayrka oo dhanna gacantiisu ay ku jirto ayaa ku dhaartay saadarteed saliidani qofku markuu uu isticmaalo oo cuntada uu ku darsado oo sida walaalka hadda aad ka dhageysanaysan qofku uu isticmaalo qofka waxay ka caawinaysaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caafimaad ka siinaya walaalaha sankorta qaba oo insulinkooda kor ay soo qaadaysaa difaac fara badan siinaysaa sunta ka saaraysaa waxaa la yiraahdaa xataa dadka isticmaala kansarka xataa maqaarka kuma dhaco bakteeriyada iyo jaraathimta ayay maaragtay ka nadiifinaysaa oo ka daaweynaysaa saa darteed zayd zaytun jawf kuma soo koobi karo maanta sharaxaadaheeda iyo faa'iidooyinkeeda halkan kuma soo koobi karo ee haddaad ka cabanayso sonkor ama hooyo macaan sonkor ay ku dhacday ama aabbo ugad oo kaga ducayso sawirkeeda qaado meesha kugu dhow ee aad ka heli karto ka gado aniga maaha inaan ku leeyahay al-shafa igu imow sababtoo tahay caafimaadka uu helo qof muslim ah aanun ogeyn ajarka aan ka helayo ayaa ka weyn maalinta qiyaamana aan kaga badbaadayo naar insha allahu tacaala saa darteed zayd zaytun jawf ka gado meeshii ku dhow daa'im cuntada ku darso ku karso wax walba ku samayso isticmaal iyada daa'im iyada mar walba iyada ku sugno waxaad ka heli doontaa caafimaad dhammaystiran waanaad ku caafimaadi doontaa haddii allah awoodale uu idmo sonkortaadana waxay noqon doontaa balansiga lagu talagalay ayay kusoo laaban doontaa insha allahu tacaala aad iyo aad baa umahadsan tahay haddaad u baahan tahay hargeysa qaybta al-shafa waad ugu imaanaysaa qayb yar ayaa kasii taalo
nairobina sidoo kale haddii allah wadala uu idmo labada qayb bay hadda taallaa laakiin meel kastaad ka heli karto walaalkayow ka gado allah ku sharfo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu